degmada Buur Xakaba ee gobolka Baay ayaa waxaa laga hirgeliyay hotel cusub oo casri ah waxaana uu ka kooban yahay hool lagu qaban karo shirarka iyo siminaarada qolal VIP iyo qolal kale oo casri ah. Hotelkan ayaa degmada waxaa ka hirgeliyay Sheekh Jibriil Qaadi Nuurow oo kamid ah qurba joogta ka soo jeeda degmada Buur Xakaba ee ka tirsan gobolka Baay. xaflad xariga loogu jiray hotelkan cusub ee Hakaba ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Buur Xakaba, aqoon-yahano, dhalinyaro, odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale oo aad u badan. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay marti sharaftii ka soo qayb gashay. dhammaan ma sheegay dhalinyarada degmada Buur Xakaba intii oo howlkun shirarka kale markii hore ma ka qabsaday jarna iskuula ka qabsaday jarna shirarkan urur haaday qaabka waxbarashada haaday dhanka waxbarashada dhalinyaro ahaan may ka qabsaday jarna iskuula ka qabsaday jarna meel raayis geek ilaahay meeni suurta geliyay waa kana Sheekh Jibriil may bani dhisay hool ee qurux badan ee hotel sheekh ma jarna hotel noocan amal ee degmada oo hool leh waa sida meel raayis dadkii oo horeeyeen iyo sheegan salaam walaalayaal may balan baahanya sid badan oo aragana ka deeyay badan la iyo jirto afludu nugeeyo kulmi dhowr ujeediya ya taabaad ya degmadu daraas markuu ahaa yani way bajiri jirnay waqtigii siyaad bar horumar la deeri la raahdo horumarka siyaad bar waqtigii la deeri Soomaaliya markala ma jirna la raaw ani koob ahaa dibadda jiri xoolagan hashaqayna way ka dhisaayeen xamara ka dhisaay la gurigiis نحن كوسي دنتها نكوسي لكن دنتي هذا جيك دعاني هاي حتى بقولي يالكي همران كديسي هكذا بورها كبي كديسي حتى ما يروه هنا إن هول إنترناشنال هوتيل شيء إسكندر ولا كان جبيل كديسي دمر بورها كبي والهرمر وسشيلديس أم وهرمر دمر ديرتيو الحمد لله ما يلي ما حد نقانه إلهي كسكو شيخ جبيل oo kordhi talaabo wax ku ool ee degmadu kordhi jaaliyado oo deegaanku waxa jeedaan oo dibadda jarana may ka dhiiri geliyaan iyo qaadan talaabada Sheekh Jibriil qaadi oo kala deegaanka ka aragayna dad oo deegaanka dhalay oo maalgashi ka soobi ilaahay wiino waayad tahay lamba sidii ilaahay aan weerar ilaahay sunu khayrsi oo deegaanki usan arki maal galay ilaahay ajran salaam ilaahay ka sii qodob ila qodob gaare dhammaan waxbarashada walaal hadda horeey way martan hayna jazakumullahu khayr iskuul kamida iskuulaadka degmada Kiyaala walaal shirar walaal xamlada iskuulka samartan hayn dhinaca qabada jiray walaal arabu bulshada iskuulka Ayub Sheekh ya martan hayni beelad qabsada jiray alhamdulillah iskuulkina way baa muddo degmada inta saarnayti qoleski geega walka daji shaqada daji eediyada maasinya iskuulkaas shaqadeeda maasinya. gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Buur Xakaba Yaro Nuur Cabdi oo hadal kooban oo dardaaran ah ka jeediyay munaasabada ayaa sheegay in bulshada kale ee qurba joogta ay ku dhiiradaan sida Sheekh Jibriil oo kale sida maragna Sheekh Jibriil degmada horumarshay dhaliisi haddii uu sida ka tilmaamay Sheekh Jibriil la tilmaamay laakiin may farxadana oo geeg may waa inta degmada Buur Xakaba ku nool milkiyahan dagan la tilmaamay laakiin may waa geeg farxadda tiilan ya walwalba ku muhiimsan وسألت ما يبغى دقمدي أهور مرسي جيك أتم كنا القاب كتب ولا نسوبي قاب كنا مفدي أفر حد ميلته على تجيك مرة جاي لكن ما يبغى ما يوري أسلوب بعد سداي أنت تجيك أنت كلنتي فرحد ميلته على دقمدي أهور مرسي أهم كلنتي gabagabada munaasabada ayaa hotelka waxaa xariga ka jiray gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Buur Xakaba oo ay weeriyaan odayaasha dhaqanka ee degmada Buur Xakaba. hotelka Hakaba waxa uu ka mid yahay hoteelada ay hirgeliyeen qurba joogta ka soo jeeda degmada Buur Xakaba ee ka tirsan gobolka Baay waxaana xarig jarkiisa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda degmada Buur Xakaba iyo sidoo kale odayaal dhaqameed iyo aqoon-yahano ka kala yimid degmada Buur Xakaba ee ka tirsan gobolka Baay. Hussein Ali Geesi 5 TV Buur Xakaba.